maxaa keenaya marka ilmaha in la kaxeysto qurbaha oo mar walba leeyihiin inay kusoo dhacaan caruuraa la kaxeysti ha sababahaas rabnaa inaan ka hadalno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماتي وسلامتي مالك استدوك أكن جوكتان ولكن عبد الله إيوه ولاشين عبير وإذن الله سنقض ونكسر إيوه فيديو عصب. أوكي أصحابتا إنتان فيديو جين قده وقالين مركو غوريسو أصحابتا نوغو عصب وحالينا هاي ويلكام سو دوادا آتي هذا أقوما سنتين ما داما إذن نوغو صبيرتين أنا وحينو تاي آدي فرحت داد كورنر جوغني إيه كان برضو وحالينا هاي آدي هذا ما سنتين يعني سيدا مرور بقى نول سعوتين آتي هذا إذن كيما تعلنينا لابدان بريدو والله أصحابتي لبدان بري والسهورنا والله برفا مقالك قصدي marka guriga arusto loo jiray waa iska nasanay waa jow degan la iska jiray asxaabta niyad laak waa la isku hayay waa noo taagnay niyad. اوكي asxaabta caawa maxaa u wadaa caawa laba beriya maqneed muxumo maxaa wadaa marka wallahi horta anaga haween ma fiidiyoo dubna horta asxaabta haween waxa fiidiyoo u dubna horta waa dareemi kartiin dad ma sha Allah oo family oo xanahay oo lagu xiran yahay faadi hal ilaa ma meesha la dhoore marka wallahi marka jijifta le oo joog saan u dago le wax doobi karna mar walba waa jecelnaa horta inaan soo fadhiisano haddan ila hadlo adkeed ma la maqlay laakiin soo jeeda xaji ikra soo jeeda marka asxaabta caawa waxa idin wadnaa horta kulli habeen ma fiirsano Soomaali ma fiirsano ma ogni laakiin anaga haween inoo tahay waliba ma qsacino tahay saacada asheeg kan xini dadka wallahi aliyo haween inoo tahay asxaabta laakiin ma waajiji faade صح واي هبين نوتاي صدح ساعه نوتاي anaga marka asxaabta wallahi cabad waxa rabnaa barnaamij oo yani dhacdooyinkiisna ay badan tahay oo qaasatan wadamada Yurub ان برنامجكان اني عبير waxa u gareysani inaa idin la wadaagno wax kala ma dadkiina inta badan waxa laga yaabaa in aad ku haminaysiin inaa Yurub imaadin laakiinse Yurub waxyaabo badan inaa ku ogaatid way si fiican tahay talooyinkaas qaado yani haduu qofku uu cajibiyo inuu qaato qasab wax la horta adduunka ma jiro wax cilada keentay bataas baa horta qasab wax la ma jirtada baa kale fiidiyogane waxa uu quseeyo title-ka ku soo aragtay title-ka muhiim ah title-ka markaas soo akhrisid kadib fiidiyogaas wuxuu quseeyo waa fahmaysaa adaab dareemaysaa ha fiidiyogeena caaw wuxuu quseeyaa asxaabta sababta caruurta qurbaha loo kaxeysto qaasatan yani markii balaad العرب laga soo tago balaad Yurub ha yani qurbaha markii laho yani Sacuudiya wadamada Carabtu ku jira laakiin qaasatan Yurub dhamaanteen waa ka warqabnaa asxaabay am walaalaheena in Yurub ilmaha lagu dhali kaliga aad dhalin صح xaqiiqada jirta waxay tahay iido lagu dhali og tahay hadane waxa Soomaalida inta badan qurbaha joogto waxay sameeyaan iigo ilmahooda la dhali og hadane godad laga soo galay ee baneenayaan godadkaas arabnaa marka caawina idin sheegno sababta wixii adoo lagu leeyahay oo adiga ay isticmaalaysid mararka qaar hadii janiser lagu helo waxa waaye janiskooda ee tahay janiskaas okay maxaa keenaya marka ilmaha in la kaxeysto qurbaha oo mar walba leeyihiin inay kusoo dhacaan caruuraa la kaxeysti ha sababahaas rabnaa inaan ka hadalno kulli idinkan wax badan waa ka faa'iidi doontiin ina iska ilaalisiin waa jecelnahay dadka Yurub joogan way banool joogan oo qasad way nool ogi laakiin dadka hada maanta Afrika joogan badanaana in dadka nagu xiro horta saxba Afrika way kala joogan noqoto Kenya noqoto dad badan Soomaaliya noqoto dad badan Jarmalka inay ogaadaan waa u fiican yihiin daasa ku dhahoyaabo dadkaas badana inay horta kuwaas horta muhiim ah inay ogaadaan waayo dadkaas war marka oga Yurub leetahay ognaa anaga xataa markii shal Soomaali joogni Yurub inoo ahayd Yurub ina wax maqli jir xataa markii warka aan dheereen hol markii tagtid hal tubo عان لك داي هل تبني بيو مركي رباتي هل تبدا عانا afka u dhigay markii imaadane waa weediino ko markii soo galno tubada markii kaamka liigay lama tuba meesha taala ileen hal biya markii ku dhaqad biyaha qabowga waa mid kuleelka waa hal markii waxa uu dhagan عان iyo biyo ninka oo tagay aw galno where is the milk and I will say this salas iyo milk baad karaadiyo saadday dukaanka ka soo qaabadi kal talaajada hoos taga sidee kaamka soo qad Soomaalida weedii us aabay tubadii caana la ishuway tubadii kale marka asxaabta leeno taasna maxaa keenayso wixii Soomaalkii joogi fahamsanay leeyahay anaga mawduucin waxa waaye sawa ilmaha loo wataa
okay asxaabta waxaan rabnaa idin sheegno sababaha keenayo horta waxa waaye xaqiiqada markii laga hadlo horta wadankan Holland anaga ka hadli karnaa siiba Holland aad degannahay Holland ka hadli karnaa Yurubta qaarna way jiraan maxay waa wadanka ugu roon horta aan dhihi karaa Holland wadanka ugu roon aan dhihi karaa marka laga soo tago Switzerland no wadanka anaga waxa ka hadloonaa hadda sababta keenayso wax walba sabab ay leeyihiin mugtahay qurbaha waa la og yahay wadamo badan ilmaha iska kaxaysto laakiin sabab wax walba sabab ay leeyihiin marka sababta keenaysa marka waxyaabo badan ay idinka tataawinayna kooda hore ani ahaan Cabdalla sababta keenayso waxaan leeyahay waalidka marka hore lacag inay fiiriyaan sax asbaabta lacagta ay ku fiirinayaan waxa waaye waxa laga yaabaa laba qof oo isqabaan misane dawladda xaggeeda aan iska qabin diiniyan waa isqabaan dhaqankooda waa isqabaan laakiin gaalka waxaa loo sheegaa in la isqabin fahanteen oo ilmahaasiti friend ay ku dhaleen dhibaatada ugu weyn horta taas waay dhibaatada ugu weyn khaasatan wadankan Holland dhibaatada ugu weyn waay sababta intay fiirinayaan inay laba income qaataan laba lacag inay kala qaataan intay fiirinayaan alahaas yar intay fiirinayaan cunugiisi oo dhaha yani ama iida wixii dhihaysaa cunugaaniiti friendisa oo iiga dhalay okay oo ku dhalay ma diidaysaa gaalka ahaa inuu ku dhahayo oo diintaada aan haysanin diinteena oo macaanay hadda oo nabaneenin hadda gaalkaada u dhigay faransa ku dhalay muxuu ku leeyahay gaalka ku dhahayo bakaas muslimna tiidmiya uu ku leeyahay asa ku dhahayo marka dhahdid aaw cunug aabihiisa ha wallahi masheekari jaamac ma dhal faarax ma dhal masheekari okay mid kale ilaahay ka siina ilaa ninka inaagta markay isqabaan ilaa ma kala harayaan mar walba kubadda way cayaarayaan ha cayaaraan muximo hadduu awlaad ilaahay siiyo mar walba waxay leedahay friends ku dhalay aabihiisa ma ogi waa la qoroyaa ultimo habarta hadduu dhib ku dhaco adooga hadduu yimaado xataa yaa kaa yeelaya ilmahan anaa dhalay 3 caruur 4 caruur meesha taagan cid kaa yeelaysa malahan sababta ugu weyn horta taas waa intay lacag fiirinayaan marka waxaa leenahay ilaahay waxaa ka barnaynaa inuu horta Soomaalida waxaas ilaahay ka madoobiyo lacagtaaseeti intay fiirinayaan dad badan yani mala soo koobi karo kooma 2 ma 3 maaha dad badan oo ku dhahayaan hadda ninkayga sheegto lacagii dhan waa lacagaha leega jarjara wallahi xaqiiqada marka laga hadla asxaabta ani iyo Cabir hadda waa wada noolnahay alxamdulillah nolosha markii ninkaaga oo guri kale uu degan yahay mutaminaata adigana gurigan aad degantaa laba guri waa kala qaadateen laba income waa kala qaadanaysiin laakiin ma ku caabi karo ku caabi kar ninkaaga dariska iska ilaalinaysa yani hal shay dhar asiga leeyahay hadii dadka lacag ku siiyaan hadii kuugu yimaadaan lagu arko ganaax waaye marka waxyaabahaas xoriyadiya iska qaadi marka adiga lacaga fiirinaysa ilaahay meel kale uu culeys ka saaray wallahi ani waxa ugu talalahay wallahi dadka familada oo aaminsan in hadii oo la sheegto oo lacagihii go'ayaan bilcakis wax different u dhaxeeyo male bilcakis kana ka baraka badan ilaahay wuu ku jeedaa ilmahaaga magacaaga leeyihiin hadii habarta wax gaaro ilmahaaga adaa xalaal adaa kursi aabi hadoo dhib ku dhaco systemkii ku jira yani dadka sharciyeysanay ahaayeen awlaad sharcinimo ku dhashteen ahaayeen ya ma ahale hadii aad dhahdid cilmigaaga xalaash ahay hada shaki gelisid ilaahay abka caroonayo inta la gaarin yani nacladna way kugu dhicaysaa wala asxaabta marka tan labaadna waxa waaye ilmaha la bahdilayo ilmahaaga ha bahdilin ilmahaaga horta alxamdulillah gaaladan ilaahay islaamku u soo cabiidiyay anagoo wadankeena dhibaato badan ka jirto garabna siiyeen deganaashayna siiyeen sharciyayna siiyeen oo meel walba aan ku tagi karno lacagayna siiyeen waxbarasho lacag la'aanayna siiyeen caafimaad lacag la'aanayna siiyeen laakiinse alahaas adoo lagu siinayo ilmahaaga yani ha bahdilin waxaan ka wadnaa ilmahaaga ka farxi ilmahaaga yani waxay rabaan sii dadaa waxaa arkaysaa lacagta ilmahooda markay qaataanba ayuu tijinaya ilmahoodana bahdilan ilmahooda فعوض لما هذي كرا لما جوي كرا عنق إسكولو تجا كركيس ووسخ عنق عسكرنا ودروفي سيهاي وحياة برميل وراعة وحمد جذكره عنق حتى يعني رفيع عن موته يعني إسكول عنق مركزين يستعي جلاسة من عاي موجود وحياة واصلة هنا إسكيل على سيد مركب مهم وأصحابته
teeda kaleetana taas ani wili waxaa isleeyahay waxaa kasii muhiimsan ninka iyo naagta kii hadda idin sheegeen ninka iyo naagta oo lacag fiirinayaan oo laba meel kala degayaan oo haddana ilmahaas laga dhigayo iyagoo xalaal ah diinta islaamka ku dhashteen xaaraan laga dhigayo gaalkaas hortiisa xaaraan ilaahay waa yani ilaahay ma aada ka baqin gaalaad ka baqaysaa ilaahay arsaaqadaas asaa kugu soo dhiibay hal daqiiqo kaaga qaadi karaa ilaahay 4 koonoo kaa soo xiri karaa laakiin waxaa laga yaabaa ilmahaas waxba galabsanin inuu ilaahay kugu naxariisano marka adiga qof weynaad tahay caqliyaad leedahay yani garaadkaaga ilaahay xeewaan iyo bini aadanka isku mid ma ka dhigin marka sida xeewaanka oo kaleete aan u dhaqan waa laga fiican yahay marka waxa waaye intaas hal iska ilaaliyo wallahi asxaabteen videogan halaas uu quseeyay wallahi laakiin Soomaali badanaa meeshan waa aragnay qurbahaneeti walaalayaal wallahi horta videogan hada aragteen waa aragteenbo dadka horta noloshaas ku nool yani wax la soo koobi karo ma aha laakiin wallahi ani nolosha kalinimadan ani waa soo arkay nolosha oo markuu ninka ku nool yahay waa soo arkay horta caadi waaye kalinimada shal markuu ninka dheeray yani ha fahmina ama ha arkina kalinim markay idin ana xataa kalinim waa soo arkay ani iyo cabiir marka isguursanayni fiiri marka isguursanayni laba wadana kala degnay ani marka Yurub imaado wadankaas nolosha ku soo bilaawday saas ay tahayne marka isguursanay waxa xoog saarnay dawladda dhinaceeda ina iska qorno ikraana oo Suuriya soo jeeda dawladda dhinaceeda ina iska qorno ani wallahi beemani sheegay arooskeena macallimiinteeda iskoolka dawladda meesha anaga nalaga xukumo naagta ani iyo xukunta contactiga ikraana oo mas'uuliyadda arooskeena way ka soo qayb gashay way ogeed waxa qariimesh miyaali ilaahay kuma qarini be waa isku qarni okay marka ay dhahayeen goormanka imaana adma Switzerland aade goor tacliinta marka wax barasho ii socod aan cabdan marka isguursaneen tacliinta marka dhameeysid maaninka wareegay cabbi aan saasa systemka igu jirtay marka wax barashada dhameeysid in Switzerland wareegay laakiin se ilaahay wuxuu qadari ana hal qof ahay iigoo dhan inta xagga loo rar lahay ina aan kaligeyga nolosha ku aan ka bilaabo haddana alxamdulillah wax ma naga haleesay yani anoo ninkay li ogyahay waaya oo markuu ii imaanay bil hatta fasax oo soo helo ili joogay oo li ogyahay martaxa ahay markuu iga tago haweenkas iga tagi jir tacsiima ii taala dhii jiri hay kabar dadaa waxa arkaysaa wadanka isla joogan bil is arkeen laba is arkeen wadanka isla joogan sabab marka xuriyada ilaahay ka qaadin qofka bini aadanku wuxuu ku nool yahay wax kaliya ma ahan xuriyada waa raxmadaha dareemay xuriyada ilaahay aan ka qaadin marka adiga iska qaadin alaashan dakhligaas yar ahli no tan ada shaqeysan tan ada keen kartid maana eed ku keenayso horta mogtay lacagta ada wax adi keen kartid way laakiin Soomaalidaanahay ma aaminsani wadan gaala joogna hada anaga waa ognahay waa hadloona waan laga yaabaa dad qaar inay gaaraan oo damiirkooda kaco isbedel sameeyaan dad qaarna waxa laga yaabaa war way waaliyihiin inay dhaafin wallahi been ma aha ninkii waa u soo la warsuga marka asxaabta aad iyo aad ugu maasantiin videogeena intaas ku soo gabagabeeyna marka insha Allah waxa idin leenahay qof walba wuxuu jecel yahay ilaaha u sahlo anagana waxa jecelnahay ilaaha noo sahlo amiin ya rab videoga xigo inta ku wada kulmeen waxa idinka ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo